isugu jira arrinkaasna waa arrin jira oo lacag baan isku haysanaa taasoo ayaami dhowid noo soo dhacday oo waddanka Kenya wala soo diray 12,000 kulanti wacan wanaagsan saaxiib waa khilaafka kooxda waayahan dambe shidatay muqaayada YouTube ee Hope Films oo khilaaf balaaran ka dhex taagan yahay kaasoo lagu sameeyay isku qabsiga dhinaca qarashaadka YouTube iyadoo sidaad wada ogtiinba muddo 3 wiiga wax muuqaal ay soo gelin YouTube muuqaaladii hore ay soo gelin jireen waxa lacag kama ay soo gaari jirin sababtoo ah waxa ka maqnaa koodhka lacagta lagu qaato kaasoo qaatay muddo 5 bilood ilaa sanad ah ugu dambeyn lacagtan oo dhameystiran waxa ay soo gaadhay kooxda maalmihii aynu soo dhaafnay gudoomiyaha kooxda iyo walaalka Hargeysa waa maqaal hagaajiyaha kooxda ayaa lacagta inteedii badneed lunsaday sida la soo sheegay gudoomiyuhu waxa uu ka iibsaday nooha waxaan uu kurgalnay sida aan u soo cadeyn lahayn warkan baraha bulshada haysta waxaan xiriir la sameeynay mid kamid ah jilayaasha ugu cadad kooxda Hope Films. Hello, السلام عليكم. وعليكم السلام. إن داوديال إن حتى خدكوا جرا مد كمد kooxda Hope Films sidan hore idinku sheegnay soo hadalkayga u noqday tus oo taabsi oo warkan suuqa la aan u rumayno daawadayaal waxaan waraysi ka qaadnay mid kamid ah dadka ugu dhow ku jira kooxda Hope Films waa baashe ma karo salaam saaxib waan ka qaaday saaxib waan ku dhowahay barnaamijka wala waxa jirta war ilaa maanta la dhex mariyo social media oo ku saabsan kooxdii Hope Films ma khilaaf iyo isku dhacaya ku yimid khilaafkaas uu jira laakiin kooxda waxaan u fasaxnay in muddo bila inta corona xanuunku jiro ayaa saasan u fasaxnay laakiin wax khilaaf oo na dhex jooga ma jiro haye saaxib laakiin khilaafkiinu waxa la yiri karo oo waxa jirta in lacag aad isku haysataan oo gudoomiyihiina xamse qalle waxa la yiri noo haduula soo cad bay iibsaday oo lacagtiina ka iibsaday ma propaganda been ba mise waxba ka jira oo waa run oo lacag ba isku haysataan arrinkaas uu jira arrinkaasna waa arrin jira oo lacag baan isku haysanaa taasoo ayaami dhowid noo soo dhacday oo waddanka Kenya wala soo diray 12,000 nooha 5,000 ayuu iibsaday xamse qalile Hope Films naartu intii ka kooban tahay waa 12 qof 12 qof qaar baa ku cusub qaar baa hore u joogay marka lacagta kuwa ku cusub dhafaal bay tuubi qaadanayeen sababtaas la xiriirda ayaa khilaafku ka jira waa sax waad fahamtay waxa igu tiri lacag ayaan isku haysanaayo lacagtaasi markaa ma lacago iskiin siiyaba mise waa lacagta YouTube ka shaqeysay mise waa mid iska deeqay waa lacagta YouTube ka shaqeysanay oo muddo naga xaninay oo waxyaabo nagu la xiray waan gartay waxa jirta horta marka lacagta YouTube ka loo furo in code la soo diro oo codekaas wuxuu qaataa muddo qaar 5 bilood qaato qaar sanad qaato iyo qaar ay ku fudaato bil qaadato marka waxa leedahay codekaas uu naga raado intii Hope Films ay riwaayada soo matalaysay codekaas uu ka maqnaa oo riwaayada way iska soo matalayso lacagtoodu way u maqneed oo hadda ay u soo dhacday lacagtii ay u soo dhacday markii u soo dhacdayna xalka la rabay in si fiican loo kala qaybsado oo magaranaysa si qalbi walaaltimo ku jirto lacagtii loo kala baro ayaa gudoomiyuhu wax damaaciyo noo haduula soo cad buu iibsaday dadkiina uu mukal xaq saasada la Soomaa dadka saasan ku leeyahay markii aan arrinka ogaanay waxaan jeclaysanay inaan asxaabteeda u sameeyno YouTube yaan iska leenahay inkastoo anigu aan sameysay YouTube baasha waan ku arkay in madar dayax weerar uu jira channel 6,000 oo subscribe u maraya sidoo kale muuna Facebook way jirtaa marka waxaad ku tashateen maadaama lacagtu ka xiriirnayd in aad channel aad sidii u leedin u madax banaanti samaysataan nin kastaana uu channelkiisa ka xamaasho soo sidaas imliid taas weeye inkastoo imika khilaafkii la soo dhameynayo oo aad guddi ku jirto guddidaasi waxay nagu soo warceliyaan ayuu baneego doonaa insha Allah ta'ala laakiin guddidaasi markaa xukuumadda gaadhayo xukuumadda dhexdhexaadin sameeyay dhex isxilqaamay mise YouTuberada Hargeysa maadaama maanta tihiin YouTuberada Hargeysa ay dhex galay oo isiri waxaan waa ceeb YouTube hala dhex galo in ka waran xamse qalile walaalkii Mawlid Hargeysawi waa ninka wax diidad karaya isagu ma ku jira kuwa lacagta dhacay mala garanta duul isagu iibsaday wuu ku jira waxyaabahan ka doodayno isagiyo walaalkii ayaa noo tashaday marka lacagta u badan yaga qaatay waxyaabahan xamse anagu macalinkaygu way wax u madidin isagaana na soo shaqaaray laakiin anagu waxaan ka xanaaqnay walaalkii Mawlid Hargeysawi
ولعقتي بدن كده سي waan ku gartay waxa jira hadaba daawad waa la kala sareeyayo waxa jirta in madaro kale dayaxo kale muuno kale adigoo kale in najmo kale waxa weeye waa dadkii lagu bilaabay lagu aas-aasay waxa jira ciyaal yar oo imka riwaayadu u dambeysay lagu soo daray marka isku lacag ay qaadanayaan mise waa la kala mala xagaas ka xanaaqdeen ما isku lacag kuwaas waa qaar ku cusub waa caadi kuwaas wuxuu way qaateen ma hadal male laakiin anagu hadaan nahay baasha iyo dayax iyo madar waxaan ka xanaaqnay inaan ka idhig kano haye Mawlid Hargeysaawi in lacagtii badankeedu walaalkiis siiyo waan gartay marka iminka waxaad iga warataa xamse qalile isagu warkan suuqa saddex wareegiyo oo la leeyay nooha cad oo duulayso ayuu iibsaday ma ka war haya youtuberadii maanta wax kala ma hayaan camalkaas ayaa la qaaraandigaya social media arinkaas haysta in war ma ka haysan mise idinku baa wali isku qoorta isku suran ما way ka hayaan youtuberadu meel kasta way gaadhay arkaygu meel kastana way gaadhay qaar soo dhigdhigay waan arkay social media meel kasta uu gaadhay waan gartay in dayax weerar ka qoran tahay sidoo kale Muuna Faysal in channelkeeda iyaduna way samaysatay oo hal video ba ku jira oo waxay sheegtay in channelladii hore kale lagu qaraabsan jiro aan iyada ahayn marka imika sheekadu waxay taagan tahay in kastoo xamaala Soomaa sheekadu waxay taagan tahay in kastoo nin kasta uu samaystay bulshadooda ku jiri YouTube gaar ah samaystay laakiin imika arinku wuxuu taagan yahay in nin kastaba uu iskaga soo dhigo riwaayad channelkiisa وهفلم النساء كوبا في تونتا لكن كاستي تدنقول حجران ندح حادين يعطي أرنكاس لقى في رسم ويا أرنكاس لما وين كاستوا قولبو قوسنا يا وحش قولبو توقسنا يا حتى وحن كويديي تاجريال يا الذين وحدك حولن ضد جارية بقولك تكون أوقف وهذه ذي تشعل dadkaasi maanta markay maqlaan hof films ayaa si jiidanaysa aad ayay waxaan u xayarun ahaantii maxaad leedahay dadkaasi taageerayaasheeda waxaan leenahay khilaaf baan soo yara dhaxgalay khilaafka insha Allah inta dhamaanayno hadduu dhamaadana waan arki hadduu dhamaan waanayna fiidiyoodii iyo waxyaabaha nooga baratay waan soo galinaa insha Allah taala waanad ku maasanta wareysiga adiga qaaday hayo walaal in aad u maasanta adiguna baashow